الماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marweyn dacalada adduunka meel walba aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation Mareexaan iyo Habargidir ayaa dagaal gorodda isgeliyay dagaalkaasi waxa uu ka dhacay aagga Balanballe halka loo yaqaan Hiraale dagaalka oo salkiisu ka yimaaday Mareexaanka oo aan idin sheegi doono markii gorodda la isgeliyay gardarro ilaan gardaroole ma guulaysto sideed ahaanba Habargidirtu marka dhulkeeda ay joogto looma dhawaan karo dagaalka khatar bay ku tahay gorodda markii la isgeliyay meydka ayaa xadad dhaafay Mareexaan midda maanta Habargidir ay ku dhigeen Habargidir waxay dhaheen annagu Mareexaan nagu gumaysan maayo dhulkeena isagoo waliba adeegsanahaya magaca dawladnimada Soomaaliya oo qabiil ahaan saanada iyo hubka loo dhiibayo qaybta 12aad oo Dhuusamareeb fadhida dagaalkan sidiisaba muxuu salka ku hayaa qodobkaas aan rabnaa inaan ogaano nimankii Mareexaan la dhihi jiray oo adoomada ogaadeen ah oo sida xaqiiqada ah inta u dhaxaysa Wardheer iyo Caabuduwaaq iyo inta u dhaxaysa Shilaabo iyo Balanballe ka guura la yiri oo aan macnaheedu SMC wararkan aan idinku sheegi jirnay ogaadeen baa soo eriyay Mareexaanka waxay ku dhaheen ka guura neefku celsha iyo tuulooyinkii ka agdhawaa Mareexaan waxa la yiri guur saaxiib adigu hartina ma tiid kablalaxna ma tiid sidaadaba nama anfacaysid ka guur qaar baa ul sidii loogu waday ogaadeenka ay dileen ceelashii Mareexaanka waa laga qaatay qarnigan haddii qabiil Soomaaliyeed la gumaysanayo uu jiro
mareexaan horaan kuugu sheegay haddaba mareexaankii guura marka la yidhi marka xaggee loo soo diray ogaadeenka xaggee u direen waxay ku dhaheen dhulkiinni habar gidir baa haysata dhuusamareeb adinkaa iska leh gelinsoor adinkaa iska leh ordaha habar gidir dhulkiinni ka dhaxsada waryaada meeshaan ka guura wardheer iyo inta u dhaxaysa caabudu waaq qiyaastii 160 kilomitraa lagu qiyaasaa hal tuulo oo mareexaan ku nool yahay ma ku arki karnaa la yidhi sidoo kale inta u dhaxaysa shiilaabo iyo balanballe iyadana hal tuulo oo mareexaan degan yahay ma arki karnaa la yidhi muf dhulkiinni raadsada gelinsoor qabsada oo waxaa qabsataan dhuusamareeb qabsada awalba idinkaa laydinka eryey ordaha dhulkiinna qabsada maxaa noogu jinni wareega caddaysanaysaan sidoo kale waxaad aaddaan macnihii gedo oo raxaweynta baar dheere iyo luuqganaane aa macnihii ku ciriirinaysaan ka xoogadee ordaha socda laakiin maya horta dagaalka salkiisa meeshuu ku haya mareexaan marka way soo duuleen habeen horaa ugu dambaysay waxaa laga dilay 2 nin ayay ogaadeenka ka dileen aagga wardheer 2 nin oo mareexaana ayaa lagu dilay ogaadeenka markay dileen labadaasi nin ee mareexaanka ah sida ay SMC idin xaqiijinayso way ku dul dhaanteeyeen dhaantay ku dheeleen helele markay ku dhaanteeyeen oo la yidhi aaggan laydinkuma arki karo meydadkii xalay soo qaateen marka mareexaanka iyagoo macnihii fiigtaal ah ayay xalay soo qaateen marka ogaadeen goradda ma gelin karnee maanta dawladnimadii soomaaliya annagaa haysanee qaybta 12aadna dhuusamareeb bay noo joogtaa biixina taliyaha ciidamada lugtuu noo yahay maan shaqaysanno 12aadna sanka oo mareexaan baa jooga qoojo dagaari saxda markii la dilay kadib loo dhiibay haddaba weerarka marka dhul ballaarsi waaye dagaalkaanna dagaal wuxuu sii daba jooga hadda ka hor waxaad ogtihiin in etoobiyaan ay soo kaxaysteen mareexaanka oo weliba markii dagaalka ay soo geliyeen etoobiyaanka iyagoo nool lagu qabtay dagaalka iyagoo doonayey in ay qabsadaan gelinsoor iyagoo doonaya inay qabsadaan dhuusamareeb iyagoo doonaya inay qabsadaan ilaa bandiiradley ay dhul ka samaystaan iyagoo dhahaya 91dii markii dawladdeennii sida ay dhahaan waay inay dawladdu iyagu leeyihiin markii dawladdeennii mareexaan ay burburtay kadib haddaba keligii talis farmaajoa mareexaan reerkiisu ogaadeenka 2 nin bay ka soo dileen meydkoodana xalay ka soo qaateen aagga wardheer waxaana loo soo sheegay guura oo qabsada dhulkiinni gelinsoor iyo dhuusamareeb aaggaasi baad leedihiin ceeshiina meeshay ku taallaa marka dagaalkan kaasuu daba jooga waa dhul ballaarsi waa dagaalkii hadda ka hor qayladhaan waa waray kuwii dhihi jir ma xastaa dawladdii madaxweynayaashii hawiye macnihii ku orin jiray qayladhaan waa waray dhihi jiray oo markii mareexaanka ay duulaan ku soo qaadayeen etoobiyaanka ay soo kaxaysanayeen aagga dhulka habargidir gelinsoor si ay u qabsadaan sanaadiiqda rasaasta villa soomaaliya uga raraayay qaran baa lagu sheegay qaran xagguu yaallaa macnihii waa meel qabiil uu qabsaday waay haddaba dawladda mareexaanku way caawisay dagaalkaasi iyagoo hal qabiil oo habargidir ah dawladdii soomaaliya u isticmaalaya habargidir dhulkeeda in la qabsadaa la rabaa oo lagu keenkeena markaan laakiin nimanku birjeex weeye dhulkooda markay joogaan waa nimankii etoobiyaan oo loo soo kaxaystay jilbaha dhulka u dhigay waay digaday ka dhigeen way baabi'iyeen mareexaanka waa lagu jebiyey baaba'aa laga dhigay haddee BBC da ma ogi siday warka idinkugu sheegayso laakiin annaga mar walba xaqiiqadaan sheegaynaa dagaalkan waa dhul ballaarsi maxaa intaas sii dheer waxaa intaas sii dheer raxaweyn iyaday u taallaa haddii baar dheere lagu xukumaayo iyo luuq iyo beled buuro xaawo iyo ceelwaaq
iyo doolow haddii raxaweyn lagu xukumaayo yeelkadeed laakiin dagaalkaasi ogaadeen baa mareexaan soo raray wuxuuna yidhi qabsada dhulka raxaweynta iyo dhulka habar gidirta qabsada noolaada ka guura dhulkan wardheer iyo caabudu waq inta u dhaxaysa waa lagu dhaanteeyey meydka wax macnihii kitaab tiraayo maahan mareexaan waxaa lagu laayey maalmihii u dambeeyey aaggaa wardheer baa lagu laayay guura leer guura marka intay degayaan marka waa inay habar gidir garadda geliyaan waa in raxaweyn qaarkood way soo qaybiyeen qaarkood geday hadda ku soo ururayaan qaarkoodna waxaa weeye kuwaan xagga ka dagaalamayo waay marka dowladnimadii annagaa haysanaa waa isla sidii cabdirashiid janan oo dembiile lagu sheegayey hubkii qaranka soomaaliya mareexaannimo gacanta loogu geliyey waxaa lagu akhrinayay kenya lala dagaalamaya waad ogeydeen 120 tignika ah qaranka uu leeyahay ayuu mareexaan gacanta ugu geliyey si loogu cadaabo digil iyo mirifle horta dagaalka hiraale iyo dhulkaasi mareexaan iyo habar gidir meeshaas ayuu marayaa waxaana tani ay sii daba joogtaa laynta la laynayo wuu xumaa ama wuu samaanu midba dhihi maayo ma xukumayo laakiin laynta la laynayo dilkii generaal galaal maxaa loo dilay ma taqaanaan generaal galaal madaxweynaha mareexaanka maxamed cabdillaahi farmaajo la hadlay galaal hadda ka hor wuxuu ku yidhi ciidamada inaan dhisaan doonaya ilaan galaal waxaa lagu tabaa kaartada ciidamada soomaaliya lagu tabaa isagaa hayay saraakiisha haysuu ka mid ahaa ciidamada soomaaliya inaan dhisaan rabaa kow dheh galaalna waa nin habar gidir ah oo cayr ah wuxuu ku yidhi kaartada isii aan ciidamada ku dhiso generaal galaal isagu marka tala ayuu siiyey warqadu u qoray wuxuu yidhi qaabka noocaasi ayaa ugu habboon taladaydii ciidamada loo dhisi karaa maadaama kaartadii uu soo dhiibi waayey farmaajona madaxweynaha mareexaanka uu leeyahay la taliyaal mareexaan ah iyo kuwo kale oo mareexaan ladaaq ah sida maxamed cabdi yuusuf oo kale sida zakariya leelkase oo kale oo darooniska ugu gacan geliyey si farsamaysan madaxweynaha mareexaanka si loogu laayo isaaqa si loogu laayo hawiyaha si loogu laayo majeerteenka si loogu laayo raxaweynka mustaqbilka waaya waxay kula taliyeen oo ay ku yidhaahdeen ninkan kaartadii saxda ahaa haddii uusan soo dhiibin oodan ka soo qaadin uu nool yahay dowladda mareexaanka khatar buu ku keeni karaa farmaajow xaggee lagu dilay galaal mise wuu nool yahay waa nin cayr ah oo reer ciyow dheere ah weliba kuwa hadda xabbadda ugu horraysa aaggan balanballe xabbadda lagu soo bilaabay weeye koofiye dhub baxar dhabe raggii la dhihi jiray ma nool yahay galaal mise waa la dilay xaggee lagu dilay ma waxaa lagu dilay koonaha soomaaliya mise waxaa lagu dilay wadnaha magaalada muqdisho meesha ugu ammaanka badan oo dawladda soomaaliya hadday dawladi jirto yaa macnihii meesha ay ugu xooggan tahay meeqa saacadood baa hoteelkiisii lagu dagaalamayay sheegade waxaa loo dilay waxay ahayd kaartadaasi gabadhiisana waad aragteen intay life soo gashay waxay tiri waatan aabbahay saacaddiisii xataa waa la beddeshay kaartadii way badbaaday kaartadan keliyaa loo dilay haddaan been sheegaayo facebookkayga gala macallinka lugeeya generaal galaal gabadhiisii waa kan kaartada aabbahay loo dilo waa tan iyadoo dhahaysa waxaan marka waxaa weeye dawladda mareexaanka ah tii afweyne sidii koobi waay waatan hadda darooniska lamber kow la rabo in macnihi lagu duqeeyo isaaq iyo majeerteen haddii teeramkan uu farmaajo soo noqdo madaxweynaha mareexaanka hadduu soo noqdo nimanka la yidhaahdo isaaq maadaama hadda ay hub soo gateen jabuutina laysankeeda ay ku soo gateen lacagta ay dhiibteen ingiriiska uu ka fududeeyey in duulaan lagu yahay haddii teeramkan madaxweynaha mareexaanka uu soo noqdo farmaajo way og yihiin darooniskan marka waxaa loogu tala galay in bmka iyo hubka culus ee isaaqa
hadday soo dhaqaaqi maagaan marka sool iyo sanaag loo goynayo reer abtiyaashiisii dhulbahante madaxweynaha mareexaanka marka loo goynayo sool iyo sanaag dhulka isaaq British protected land marka loo goynayo macnihii dhulbahante midigta mareexaan farmaajo abtiyaashiisa marka loo goynayo oo isaaq la rabo mar kale 88 oo kale in bacyo ay ku xaaraan waxa la rabaa in daroniskaasi lagu cadaabo isaaq iyo nimanka la yiraahdo majeerteenkana 7 taangi bay haystaan kii 8aad isaaq ayaa ka qabsaday 7 taangi 2 waa fadhi ku dir midna macnihii 5 way socdaan waxay yaalaan gaalkacyo xiracasta meesha la yiraahdo ayay yaalaan taangiyadaasi ayaa la rabaa daroniska kow in lagu duqay mar haddii taangiyada iyo 2 BM ee ciise maxamuud leeyahay haddii la duqeeyo macnuhu ma dhaqaaqi karaan way majeerteen ma dhaqaaqi karaan daroniska leelkasaha ninka la yiraahdo Zakariye oo wadani iska dhigi jiray ayaa macnihii si siyaasadaysan afka ugu gacan geliyay keligii taliye farmaajo isagoo beriyaan dhawaaqay ma aragtay wuxuu iska dhigay farmaajo inuu ka soo horjeedo laakiin uu u gacan geliyay haddaba annaga isaaqa waxaan u sheegaynaa walaalayaal 88 afweynaha mareexaan keligii talis farmaajo mareexaan adeerkiitu idinku dhigay annaga waa ognahay mar dambe in la idinku dhiga ma rabno ilaahay hadda waxaana leedihiin Soomaali baana laysay may iyo maxaa nooma kala harin Soomaali oo dhan awoodeeda la idinku laayay laakiin mareexaan oo cuqdad idin qabay ayaa idin laayay oo xoogii Soomaaliya gacanta loo geliyay xildhibaanadiini 33 waqooyi calanka markaa keenteenna burburiyay Soomaaliya 123 xildhibaan leh golo kacaan u bedelay oo annagana nagu rabeeyay bakaareeni baabi'iyay Umar Xaaji Masalla ninka la yiraahdo gaani maslax maxamed siyaad bare afweyne nafsadiisii iyagoo awoodii Soomaaliya wata markay idin soo duqeeyeen kadib magaalada Baydhabo Madiinatul Mawd wixii dhacay waa la ogaa isaaqow oo waxa weeye dadkii aan u diyaarsanayn dagaal oo nabad sugaya iyo dawladnimo waa tii bakaarahooda nolosha lagu gubay islaamahooda oo uur leh ilmaha la uur dooxay caloosha laga soo daadiyay maalinkii magaalada Baydhabo ay ku dhimanaysay kumanaan jawaana lagu aasay sababta waxa iska lahaa mareexaan baa iska lahaa iyagoo awoodii dawladnimada Soomaaliya gacanta ku hay marka annagaba waa nala dhibaatay isaaqow laakiin annaga maadaama hadda aan macnii indhaha aan kala qaadnay walaalayaal meeshan meel loo soo ordo maahan meeshan dawladnimo ka jirto waa been meeshan mareexaan baa ka taliya villa Soomaaliya inta ku hareeraysan oo dhan waa mareexaan iyo mareexaan kaalkaal tusaale la taliyaasha waa mareexaan la jir macnaheedu waa maxay ama nin gabar mareexaana qaba ama nin gabar mareexaana ay dhashay islaan mareexaana ay dhashay ama ma arkayse nin gabadhiisu mareexaan uu qabo kaliya villada ku hareeraysan horta macnaheedu waxaan rabaa inay ogaadaan isaaq midaasaan rabaa war meel annagiiba aan ka sii cararayno war meeshaan dawladi kama jirto midnima ma dhowa meel fiican baa qabsateen arrintiinu way dhowdahay annagana jidkaan ku soo jirnaa isaaqow waxaad yeelaydaan hubka hadda aad soo gadateen 9 jibaara codadkana villada maadaama hadda aad ku jirtaan walaalayaalow haddii madaxweynaha mareexaanka uu villa Soomaaliya ku soo noqdo ogaada daroniska kow adinka la idinku duqayn rabaa sool iyo sanaag baa reer abtiyaashiisii dhulbahante uu u goyn rabaa isaaqow warkeena waa naado meelaha ay yaalaan daroniskana annagana la soo xiriira annagaa sirdoonka ku dhex jirna annagaa militariga ku dhex jirna gacantiinu way dheer tahay dhaqaalo badan baa dhiibi ka dhaan ilaahay hanti buu idin siiyey daabshiil iyo si kala duwan culimada lugaysaad ku laran tihiin daroniskaasi si aad uga hortagtaanna annagaa informationka iyo sirta xataa hadda anoo live ku jira hadday qaadaan meesha ay geeyaan annagaa idiin sheegayna oo raxaweyna
oo maylan ah isaaqow sool iyo sanaag haddii farmaajo reer abtiyaashiisu u dhiso hadhowdii adinkana sidii baydhabo loo gumaaday ama 88 iyo ka daran baa laydin gumaadi rabaa kadibna waxaa la arki doonaa muuse biixi ciro ma arkaysa siilaanyo iyo madaxdiinii iyo faysal cali waraabe oo xamar lagu soo xiraa laydin jajabiyaa ku qiyaas qaata mukhtaar roobow ku qiyaas qaata baydhabo wallaahi sidaasay damacsan yihiin wallaahi daacad baan warramaya isaaqow adinka ismucaarada haddaad doontaan laakiin waxaa idinku soo socdaa waxaa weeye nabad iyo nolol inay balaayo idinku beertay u soo socotaa annaga waa ku dhex jirnaa calooshooda mukhtaar roobow ku qiyaas qaata maamul goboleed intoo la idinka jaro sool iyo sanaag baa waxaa la rabaa in la keeno qof maqaar saara hargeysa adinkana haddaad iswaashaan madaxdiinnii sida mukhtaar roobow xamar loogu soo xiray ayaa la rabaa in loogu soo xiro taladaasna waxaa dhiibaya maxamed cabdi yuusuf iyo oo aaminsan SNM in ay gumaad geysatay oo idaacadda aan ka qarsanin oo soo fadhiistay oo cugdad idiin qaba raggaasi ayaa fadhiya gamaamuurtii weynayd marka annagu isaaq allahuma ballaqtu waxaa u sheegnay ma jeerteenow idinkuna sool iyo sanaag marka la dhiso haddii nabad iyo nolol ay soo noqoto doraad waa sigateen cabdiweli cali gaas ama dani diida ama oggolaada idinkay idiin taallaa isku maqnaada ama isdiida ma jeerteenow masiirkiinnii isma dooran doontaan idinkuna garoowe waxaa qorshaysan in nabad iyo nolol nin ay wataan ay keensadaan ugaasyada iyo salaadiinta iyo boqorka hadda la sheegaayo nafsaddiisa hadhowdii sida malaaqiyada baydhabo ayaa la rabaa in moora loo geliyo oo lagu rabeeyo oo laga dhigo maxaabiis la malaso oo cunto keliya la siiyo aan masiir daarood iyo majeerteen aanay goyn karin marka majeerteenkuna in badan buu sheegan jiray in ma arkaysa macnihii masiirkiisii uu ilaashanayo laakiin ogaada teeramkan haddaba majeerteenow haddii codkiina aad siinaysaan siyaad barre waad ogtihiin muuse boqor oo cusmaan maxamuud saleebaan ah oo ganacsadihii soomaaliyeed ee la garanayo shatiga haystay maxamed siyaad barre afweyne ayaa gantaal ku dilay guri ku yaalla muqdisho sannadkii 1990kii maxamed siyaad barre ayaa boobay kursigii cabdirashiid cali sharmaarke loo dilay 15 oktoobar 1969kii laasaxaanood loogu dilay mareexaanna lug uu ku lahaa dilka cabdirashiid cali sharmaarke waayo taliyaha ciidamada wuxuu ahaa maxamed siyaad barre 21 sano mareexaan markuu fuulay kursiga tii la idinku dhiga waad ogtihiin naagihiina lagu geerishi jiray askarta madax adag qardho kaambo xere kaambo iyo xorgoble habeenkii gabdhaha majeerteen baa lagu geerishi jiray waa la iska waswasi jiray bilaash meel walba qaxooti baa ku noqoteen ilaa iyo markii dambe kulaylka uu idin gaaro oo aad Itoobiya ka soo jabhadaysaan oo wardheer ah soo martaan wartala hadday gacantiina idinla siman tahay 329 xildhibaan baad Soomaali wax ku dooranaysaa waxaan u sheegayaa majeerteenow 48 xildhibaan ee Puntland ka soo baxaya ka fiirsada cidda aad siin doontaan codku waxa weeye hal lagu daray waay hal dheeriyana madaxweynimada lagu doortaa isaaqow Somaliland annaga xaasid kuma niin wallahi sir baan idin sheegaynaa isaaqow idinka isburbursada haddaad rabtaan laakiin 88 ha hilmaamina hadday ka daran tahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi mar haddii shidaal ay qotaanna hadday soo noqdaan shidaal bay qodayaan ma qaban karaysaan kuwaan ma qaban karaysaan haddaan idin sheegayaa 100 sano oo soo socota rejiim aan la kicin karin baa soo socda madaxdiina xamar baa lagu xirxirayaa wallahi inta Hargeysa laga soo qabto ka fiirsada waayahay nimanka la yiraahdo hawiyow
in badan baad dul qaadateen laydinku tuntay laakiin dantiinnu idinkaa yaqaana annaga ma idin heelinayno laakiin dantiinnu idinkaa garanaayo haddii farmaajo aad soo celinaysaan iyo haddii kale haddii farmaajo uu soo noqdo gelinsoor iyo dhuusamareeb mareexaan baa macnihii degaaya haddaama kuu sheega aniga ogaadeen wuxuu ka soo eriyey wardheer iyo inta u dhaxaysa caabuduwaaq waa yahay ogaadeenow adiguna waxaad ogaataa 12 xildhibaan aad leedahay waxaad ogaanaysaa oo aad meel ku qorataa farmaajo hadduu soo baxo kismaayo ma fadhinaysid kenyaatina wuu ku daynaya haddaan kuu sheega aniga haddaan kuu sheegaya wacayslow xasan sheikh dil iyo xarigaa u soo socda fig iyo toogasho abgaalow la kadaalika waa yahay waxaa kuu soo haray raxaweyney nin kasta oo kursi loo xiray oo la dooranayow hal dardaaran igaho hal dardaaran ma jiraa qof raxaweyna inta hadda la dooranayo ee inta aan la dooran aanu mareexaan dhibaataynin 1991dii ama in adeertii ama qaraabadiisii ama qabiilkiisii madiinatulmowt aan wax kaga dhiman oo aan macnihii rafaadin oo aan dhibtoonin oo ma arkaysa macnihii bukaarooda aan la gubin oo hooyadiisii aan hortiisa lagu kufsan ma jiraa ma jiro haddaba 77 cod kursiga si kasta haddii laydinku xiro raxaweynay afgooni aan lahayn annaga cadowgeennana mar walba carabkiisuu laaban yahay dardaaran baan lahayn xasan sheekh maxamuud 77diinnii berri oo kale doorashadu markay tahay suu ugu faraxsanaa waa la gediseen farmaajaad ugu shubteen xasan cali khayre buruskaad ku dhufateen waxaan idiin sheegaynaa maxamed cabdilaahi farmaajo sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur madaxweynaha mayland haddii keligii taliska mareexaan 3 sano kaamila uu u xiran yahay aanu soo daynin doorashadan meesha codka aa marinaysaan wallahi ma idinkala dardaarmayno wallaahi bilaahi tallaahi maba idinkala dardaarmaynaba kulligiina xarig baatiin dhammaanti fiiri dabeecadda madaxweynaha mareexaan uu leeyahan kuu sheegaya la taliyaashiisi in ay qofka isticmaalaan marka ay dan ka leeyihiin markaas kadib qoloftiisa ay bannaan ku tuuraan dabeecadda ay garanayaan waay qayraa sidaas ay ku sameeyeen tusaalaha ugu dhow waa qayre 3 sano iyo bar dadkiisa marka lagu baabiye marka dambe qolof oo kala loo tuuray waxaan idiin sheegaynaa hadda xildhibaanimo la idinka dhigay xasan sheekhba kuwii uu soo qortay unbaa macnihii dhinac kale uga shubay oo la gediyey waxaan idiin sheegaynaa mukhtaar roobow haddaan la soo daynin hadhowdii idinkana sidii qolofta oo kale marka la idin isticmaalo oo jaranjar la idinka dhigto ayuu idinka dhigi rabaaye war isaga waxba idinkama dhigin codka digil iyo miriflinimaad ku hesheen haddaadan digil iyo mirifle u dhalanin haddaadan maylan u dhalan xildhibaan ma noqoteen soomaalida qabiilay wax ku qaybsatay war wuxuu waa waxaaga xildhibaannimadu waa xildhibaannimo adiga aad leedahay ma ahan mid laguu soo tuugsaday si kastaa laydin caburiyo waad cabursantihiin waan ogahay quluubtiinna oo dhan mukhtaar roobo waa ku qoran mukhtaar 3 sano uu xiran yahay gobolladiinnii shabaabka dadka baabi'inaya mareexaan baa u badan waaliga gado ayaa hoggaamiya oo afka mayga yaqaana oo tuulo idin jaray si aydan wax u noqonin maadaama aad ka awood badan tihiin haddii waddooyinkiina ay isku furmaan macnihii baar dheere mareexaan aanu dhihi karin hadhowdii anaa guddoomiye ka noqonaya oo jaamacaddiinni ay tahay luuqganaane aanu dhihi karin oo beled xaawe aanu dhihi karin oo ceelwaaq aanu dhihi karin oo daalow aanu dhihi karin laakiin marka shabaab tuulooyinkiinni makacdooyinkiinni iyo gobolladiinni ay kala googooyaan naftaaba u yaabantihiine goorme iska kicinaysaan marka shabaabka laguu sheegaayana waaliga gado iyo kulanajiis way sheekaystaan hadda ka hor macnihii waan idiin soo dhignay whatsappkooda intaan jebinay war dadkan dad wada shaqaysta waay shabaabka idin baabi'inayana hoggaankiisii mareexaan waaye
kan baydhabo etoobiyaanka idiin adeegsaday kaarahana mareexaan waaye mukhtaar roobow marka la soo xidhaayey lacagta waxaa soo ururiyey waaliga gedo ee mareexaan ayaa ka soo ururiyey dhulka koonfurta soomaaliya lacagtii mukhtaar lagu xidhi lahaa ilaa iyo haddana inaan la soo daynin iyaga ayaa ku dadaalaya waayo shabaabnimona in lagugu baabi'iyo calanka buluugana in lagugu baabi'iyo marka sidaa awgeed gacanta codadkiini lagama hayo xasan sheikh buu kuwii uu soo qortay iyagaa la gediyey adinkana la kadaalika saasaad samayn kartaan war ninka qofaan aarsan uur hooyadiisu ku jira raxweyn waxaan rabnaa digil iyo miriflow sida isaaq inaad noqotaan isaaq haddii wax yar loo geysto utuntooda kumanaan sanoay soconaysaa kumanaan sano wallaahi oo bilaahi oo tallaaya waana rajaynayaa in ma arkayse macnihi hadalkeena uu idinka dhex baxayo oo ma arkayse caqligiina uu koray maskaxdiinu ay xorowday waan dareemi karaa inaad macnihi tibil aad leedihiin tibil u aamusa daacad isaga dhiga kuraasta ku hela ninka kursiga la geynayo mar walba raxweyn maano raxweynow qalbigaaga mukhtaar roobow oo ku jira raxweynow 91dii siyaad barre afweyne iyo mareexaan maslax iyo gaani waxay idinku dhigeen inta hadda la doortow qofaan ehelkiisii mareexaan aanu dhibaataynin ma jiro qofaan bakaarihiisii la gubin ma jiro keligii taliskan codadka kaga xanuujiya haddii ilaahay uu ka raalli noqdo haddaanu idin raalli garaynin madaxweyne mukhtaar roobow aanu deg deg u soo daynin af iyo ur aanu u bixinin wallaahi ku xanuujiya maxaa yaan siinaynaa armay waxba kaama gelin soomaaliya adiga waxba kaama gelin meesha iyagu ay ka galaan ayaad ka gelaysaa waa ka tira badan tahay waa ka xoog badan tahay iyaga inay ku soo dhex maraanna way ku qasban yihiin maantana ogaadeenka way ku eedaysan yihiin calankay ku dhibaateeyeen majeerteenka way ku eedaysan yihiin isaaqa way ku eedaysan yihiin dirta hawiyaha way ku eedaysan yihiin habargidir waa tan hadda ay ku soo duuleen hadda ma fahmaysaa waa qasab inay ku hoos joogaan waa qasab dhowdii haddii ay degaan meeshii marka soomaaliya iyagu ay ka galaan haddii qolo kale ay qabsato ama dawlad ay burburto kama xoog yarid waana ka ilbaxsan tahay raxweynow wax ma kuu sheegay majeerteenow wax ma kuu sheegay isaaqow wax ma kuu sheegay waxaa la ysku xanuunjiyo sow calankaasi buluugga iyo villa soomaaliya soomaan la rabo in diyaarado inta la soo gatay la rabo majeerteen in lagu duqeeyo la rabo in isaaq lagu duqeeyo isaaq dhulkiisii lagu kala gooyo la rabo in raxweyn lagu duqeeyo la rabo in habargidir lagu duqeeyo la rabo in abgaal lagu duqeeyo la rabo in xawaadlo lagu duqeeyo la rabo in ogaadeen lagu duqeeyo haddee codadka idinka imaanayaan hadda ma fahmaysaa haddii xataa lacag ay noqoto lacagta qaata laakiin farmaajo yuusan idinku soo noqonin hadduu idinku soo noqdo mareexaan aadan ingiriis sow warka aad noo sheegtay run buu ahaa dhayl annagaa u qaadanay waxyaabo badan oon idiin sheegnay gadaalay ka soo baxaan mareexaanow madaxweynaha mareexaanka mukhtaar roobow hayso marka camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe wuu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay tahay kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal muuqaalka xiga ka hore haddiina la kala qaato habargidir dagaalkii lagu soo qaaday mareexaan uu ku soo qaaday reer ciyow dheeraa galay cayr baa galay ku baxay habargidir way u midowday dhegaha lagu dhuftay ogaadeenkii na wuu soo eriyey mareexaankii uu ka laayey xalay maydkooda qaateen qabsadaa la yidhi gelinsoor iyo waxaad qabsataan meesha la yidhaahdo dhuusamareeb adinkaa taliyaha qaybta 12aad ah adinka ayaa ah taliyaha ciidamada xoogga adinkaa madaxweynaha ah xoogga soomaaliya ku qabsada sidaasay isa soo bareen sidii hadda ka hor etoobiyaanka markay soo kaxaysanayeen lagu qabqabtay etoobiyaankii xitaa habargidirta ay ku qabqabatay aagga balanballe iyo cabuduwaaq marka insha allah waxay soo kordha waan isla joognaa waxaan u taagannahay xaqiiqada mar walba inaan soo gudbinno iyadoo nacayb iyo jacayl midna aanan ahayn sheekh mukhtaar roobow cali abumansuur fii quluubina
haddaan nahay qowmiyadda digil mirifle idama le jannatul firdowsa